ihaano bini'aadanimo loo geystay muwakkiliintayda oo ah in maaragtay loo qubeeyey oo cawradooda maaragtay bannaanka loo dhigay in maaragtay tawxiidkoodii maaragtay lagu jeejeesay siyaabo kala duwanba ha u kala tirsadaane waxay isku haystaan dulmanayaal care la sargoostay waxaana ay ka riday qawaariijta buuq gobolka hiiraan ku dhuumaalaysata qubays wadareed loo sameeyey kadib mar kale ayaa loo wada qabtay shahaadada waxaana martay inay ahaayeen gaalo iyagoo heshiis kula soo galay qawaariijta inay u soo basaasaan ciidamada mustafa ibraahim maxamuud xasan ka tirsan ururka shanaad guutada 16aad booliis military xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa anshaxumo ku mutaystay ka saarista ciidamada waxaana uu xigtay inuu iska dhiibo jidiyada jahadiidka isagoona laga qaaday waraysi uu ku cadeynayo mowqifkiisa waxaana mar kale uu isku dayay inuu dib ugu soo noqdo ciidamada markii hooyada u tagtay shabaabku maqalkaaga dumay yaa ku geeyay maxay idin dhex maray maxay ku dhaheen maxaana lagu sheegay shabaab waxay geeyay mantaqaana markaan degmadayda buqaan imaaday nabadoonidii ayaa dhahay waxaad aadaysaa degmada buq aniga degmada ceel aan imaaday degmada buq ayaad aadaysaa meesha mantaqaana lagu soo qabanaa xogaa barnaamijka meesha ka jira markaan u tagay soo dhawo wuxuu ku soo baxday ali dhahay dhinacaas oo ridida waxa soo gashay muslimiinta tawxiidka lagu qabanaa waxaan dhahay tawxiidka macnaha ashhadu la ilaha illa ayuu ku leeyahay asigoo Soomaali ah mantaqaana istaqaanin ayuu ku dhahay aniga ka awood sareeyo tawxiidkan waa ana haysta adi tawxiid ma istidii qawa ayuu ku leeyahay aniga sidaan u fahmay maxamed cabdiraxmaan cali cabdi 26 jirkan ka tirsan ururka 84aad guutada 14 Oktoobar xoogga dalka Soomaaliyeed dhaawac ka soo gaaray howlgal awdhiigla ka dhacay ayay taliska ciidanka xoogga dalka u garteen fasax 8 bilood ah iyadoo la joogteenayo xuquuqaadkiisa ciidamada marquur ayaa isna laga war helay waraysiyo uu siiyay warbaahinta argagixisada waa kan isagoo ka sheekeynaya sida loogu qubeeyay shahaadadana mar kale loogu qabtay deegaanka janaalo shabeellada hoose oo markaas si ardayda al-shabaab lagu buri markan maylay ka howlgalayeen intiiba ciidan haye janaale iyo awdhiil lamada magaalo meel kale ma ka howlgal atana awdhiil dhaawahay deey anta badan ardayda aadee maana ardayda gobolkaasi waa ka dhaawantay walaalo isku dhaaf yaa irti marka hoob isku dhaaf inta ka noolada markan aadi wadanka oo arday hanbaa irti ما هي ودنكي الشباب مروق با سلان كباير مركن ما يرتي هذه ولا سي أرد دمبلة ولس فهم كرام ولا يرتي مركن أنا نساس لي بنك باي مو يقول أور هم بتانغ أنا أمباه ناي أو هذا يسكو باه مال مهينا أفرسنا كم معنا هذا توغسي تاسجيل إنسان مركا هالكاس يا كحريري yaa ku geeyay nimanka meesha haysto maxaa idin dhex maray maxay ku dhaheen ardayda hariirinta maana meel hariiriyay lanko ardayda qaraabeen oo al-shabaab ka tirsan lankaasay hariiri nabadoonka oo maana meel roog oo ardayda al-shabaab ka yali hariiri markan saasay ka saari kadibna yaa u tagtay maxaa lagu dhahay maxaa is dhahdeen ما والإس إرنا إلهي بورو من هوب إنسادي بورو لسادي أديكو معنا ملاك ينسادي ديجان كانوا بورو لهايتي والأم معنا إسلوب ديبو ملاينا ملاك مركنا سادي هل مر لي بارجع لا تنما بارج مركا لان أوني فوربان أرني ملاك ينن هاينا كي هي رياي ينن هاينا أو هل مر حتى هنوجي يسوق فرينين مارنا muxuu ku dhahay maanaha ana lankoo ciidankan dawladdu ku tabo iyo on seed marne aan gabooyana jirtaan aan gabooya sabab maanaha adiga maanaha gaaliha ka dhaha jirtay ado dhanba maanaha nijaasa la tamal taaso maanaha walka daahiriya waay waa lagu leeyahay maanaha waa lagu daahirina amal maanaha gaala la joogi jirtay adiga adiga maxaa lagu sameeyay si lagu yeelay nolosha ya adiga see ku yeelan macna see ku dhahay maxaana sameeyay markaas madamay sameeyay dharka oo ardayda madaasay meewadi maa'us iyo shaati wadi maa'usti ishaataga maanaha ardayda dad ku biyaan oo ardayda kishidaalkii la kisheenay marne oo shanqaadka wiinaga kaasa bilaha buusideen
shaambili ki rube adnabo maanaha ardayda dhugaysay likidheed maanaha ana saaso yo making amisnina dan oo gaalay king amisnina maanaha walka daahiriya waay dable nuur maxamed xiire guure danab xooga dalka ayuu kamid ahaa si live ah oo aan shaki lahayn ayaa looga daawaday barta TikTok-ga la dhinacsanaantiisa afkaarta qawaariita Saabir Axmed Cabdullaahi oo afgarashadiisu tahay Cabduqaadir ayaa kaga duwanay eedeysanayaasha kale inuu horeba kamid ahaa kooxda argagixisada isla markaana uu ka soo qayb galay dagaalo badan oo ciidamada qaranka lala galay sidoo kalena uu xubin ka ahaa qaybta dilalka qorshaysan ka fulisa gobolka Banaadir 2022 ayuu qortay ciidamada si uu shaqo basaasnimo uga dhax qabto aabiis horjooge Axmed Cabdullaahi oo Ceelbuur ku sugan ayuu u gudbiyay xogo lagu basaasay xeryaha ciidamada iyo hab dhismeedka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed eedeysanaha ku hoolan ururinta xogahaas ayaa gacanta lagu soo dhigay isla markaasna la fashiliyay dhagartii uu damacsanaa adiga shabaabka see ku gashay yaa ku shabaabka ana see marka hore shabaabka yaa ku tashkiiliyay inta ka gashay maxaan u qaban jirtay kadib yaa dawladda see ku soo gashay shabaab see lagu xiray kadib adag fahmay mana daay mana waxa uu biiray Ceelbuura uu biiray mana 2017 ay uu biiray mana Ceelbuur aabiyeen igu tashkiilin fan kadibna waxa anagoo shaneen xamara soo galan wixii nala dirna waa sameeyna macna wixii ii dirbo anaan hogaaminay macna fant mana kuwaas mana xamar saas ma aqoonin ana ciyaal xamar ah macna anaan geeyay labada bil ugu reesan ana magaalada kala tusay markaas waa wixii sameeyna la anaba sameeyna dililkii iyo wixii kadibna stoolooyinkii Ceelbuur geeyna macna يعني 2022 bishii December أنا وشان أنا لسه درس معنا أذكر أنا وشان يعني أفر كلا بحثتي هذا Ceelbuur كل مكان معنا أنا الإلكتريا أنا لا معنا الإلكتري مركاني من أخوي ولين مقلفين أساني شيء معنا أبي شيء وأنا تجني تبركين وسوقاتي أبها أو بيجي Ceelbuur جرا محققة أسا أمير وين معنا يا أمير وين معنا الماء مارك أو سوق أمريكي لكن أو تشكيله معنا شو شيء جاي أو تشكيله معنا إن قال هذا ما عرفتي دين تكسو جان ما عرفتي إن لو هرت ولا سكو خرحية أنا أسا أمريكي وتشكيله معنا يعني هي أمريكي هرب معنا كتلقل يا أبا شباب مسؤولين معنا لكن أبا قال إنه لاني أنا أوتجي معنا ما دام أسي دلي مركا أوتجي إنه هو الحين ودع معنا خلت كانوا ودع مرة معنا من الصلاة حقها أو كويدجر عيدك كويدجر محاكمة ده حقها عيدك أو كويدينا أتوق بيجر تم محاكمة ده هاي محيق هاي حكمة ده إنه أورك أو كلا وملا الله وضع يمشي أو أسيق يدرو أنا هذا معنا أنتوا كدروا وكلت صالح هذا حرمرينس عمل وعيدك بدأ أكل جوجل وماشي أكل تقي داير معنا يسوي فيري يسوي إندي محل عندنا أنا ضدك ماشي جوجل أنا عيدك أنا تقي وأنا فيريني مرنا وعى وشيء مرنا وعى ما بلعنا دعسو أو تقي معنا مرة بمركز شخص صبح هذا معنا أنا ديدي كريو فهمت هذا نواك هاي مرة خلت كي جنوا آخر سنة هاي العقد ما يوقف سجل العقد صدقوا سينا معنا يا $7 اللي سينا بشيء يباورع طبعا معنا موتوين $8 يباورع اللي سينا مرك أذيك عيدك يا دمين كاهي مرك قرنيس أنا عد مين يجمعن معنا أيه أسا يقدر صدق أدري معنا أني أسا أنا وشنا يقدر صدق ماشي ما تقدر معنا ماشي نسكم قرن دتك القري دتك كان قرنين دتك كان قرنين بدنا معنا اللي تري مكاتقنين ماشي أنا القريب وعيدي ماشي أنا القريب نقول ماستر baaraka tirsan hoggaanka sahanka iyo wardoonka ayaa maxkamadda ku biiriyay macluumaad baariseed galkan la xiriira ku-xigeenka xeraalyaha guud ee ciidamada qalabka sida gaashaanle Axmed Cabdalla ayaa guddoonka ka dalbaday in eedeysanayaashan ay ku qaado qodobadii sharciga ah ay ku soo eedeeyeen eedeysanahan
aabiis ayaa ku tashkiiliyey inuu ka mid noqdo kooxda argixisada al-shabaab asagoo markaas dugsiga sare ku jiro xamar ayuu joogay dugsiga sare oo dhiganayay kooxda argixisada al-shabaab sidaas aabiis ugu tashkiiliyey uu ka mid noqday tababaro soo qaatay jabhadihii iyo galay dagaalo badan oo ka soo qayb galay muqdisho yimid kooxdii dilalka qorshaysan ka fulinaysay tiim afar ah ayaa isaga waxaa looga dhigay horjooge dilal badan oo qayb ka ah oo ka soo qayb qaatay kadib eedeysanaha wuxuu arkay jaaniso wuxuu ku helay ciidan eritrea loo qaadayo tiro badan ciidankaasuu ka mid noqday si uu jaajuus ugu noqdo kooxda argixisada al-shabaab tababarkii soo dhammaystay howlihii jaajuusnimo marka inuu diyaarsado taleefon kama gudbinayn kooxda argixisada sida baaraha uu caddeeyey laakiin markii hal mar macluumaadku uu aruuriyo ayuu wuxuu aadaya galguduud si uu aabiis ugu gudbiyo xogtii uu soo helay soo eedeysanaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gacanta ayaa lagu dhigay hogaanka sahanka iyo wardoonka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa gacanta ku dhigay inta uusan xogahaasi tirada badan la u gudbinin kooxda argixisada al-shabaab haddaba mudan gudoomiye afartan eedeysane waxay halis ku yihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan howlgallada iyo argixisada hadda dagaalka lagula jiro ayay halis ku yihiin bacdama saddexda eedeysane ee koowaad labaad iyo saddexaad ayagoo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed raad shabaabni marka hore aan lahayn ay si iskooda wax ku qasbay aysan jirin ay ugu tageen kooxda argixisada la soo heshiiyeen waraysiyo soo dhiibeen kadibna ayagoo ciidanka ku dhex jiro magaalada Muqdisho dhex joogo la qabtay soo halis ay ku yihiin ciidamada tiimkan tiimam ka horeeyay oo maxkamadda aan hor keenay oo sidaas oo kale kooxda argixisada xiriir la sameeyay waa jirtaa oo maxkamaddan ay xukun ka soo saartay sidaa darteed mudan gudoomiye saddexda eedeysane Mustafa Ibrahim Maxamed Cabdiraxmaan iyo Nuur Maxamed xiiray bacdama ayagoo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee argixisada al-shabaab u tageen isla markaana ay ku biireen ka mid noqdeen dagaal ayadoo lagula jiro cadowga ay baneeyeen furumihii dagaalka ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay baneeyeen qaarkood qori ay qaateen la aadeen buulo burdo iyo meel ka shisheeso wareysiyeen ay soo siiyeen argixisada heshiisna la soo galeen waxa codsanaya maxkamadda inay ku xukunto qodobadii aan ku soo eedeynay halka eedeysanaha afraad oo ah Saabir Axmed Cabdullaahi magaciisa saxda uu yahay Cabduqaadir bacdama kooxda argixisada al-shabaab uu marka hore ka tirsanaa 2017 ilaa hadda oo la qabanayo oo al-shabaab kamid ahaa jabhad dagaalo badan uu la soo galay dawladda ciidanka dawladda sidoo kale dilal qorshaysan oo gobolka Banaadir ka dhacay uu qayb ka ahaa asaga sidoo kalena basaas argixisada ka tirsan oo ciidannimada asaga iskiis u qortay maadaama uu yahay qodobada aan ku soo eedeynayna ay leeyihiin culeyskooda si waafaqsan qodobka 6aad 17aad 18aad 21aad 25aad ee xeerka la dagaalanka argixisada iyo sidoo kale 203 204 200 434 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed eedeysanahan asagoo marka horeba dambiyada uu ku eedeysan yahay aad u cusleed oo argixisanimo dilal jabhadnimo oo dagaalo uu la soo galay ciidanka dawladda ayuu hadana basaas noqday in marka cadowgaaga uu kugu dhex yeesho basaas ciidankaaga dhexdiisa uu basaas ku dhex sameesto taasaa markaa basaaska la qabtaa xukunkiisa wuxuu yahay dil soo eedeysanahan waxaa u dheer basaasnimadii waxaa u dheer inuu shabaab ka mid ahaa dilal qorshaysan uu soo fuliyey sidoo kalena jabhado uu ka mid ahaa dagaalo badan uu soo galay saa darteed mudan gudoomiye Cabduqaadir Axmed Cabdullaahi waxaan maxkamadda sharafta la ka codsanayaa inay ku xukunto dil toogasho ah ana qodobada aan ku soo eedeynay waxa ay dhigayaan maxkamadda waa mahadsantahay qareennada eedeysanayaasha ayaa iyana jeediyey difaaca muwaakiliintooda mudana gudoomiye garsoorayaal waxaan u gudbayaa waraaqadaha kale ee muwaakiliinteeda laga soo gudbiyey oo lagu tilmaamayo qiraalka ma sheegayo in ay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab oo lagu soo eedeeyey faqradda 6aad balse qiraalka wuxuu tilmaamayaa sida igraaha ah ama kalifaadda ah ee loogu qasbay markii ay tageen dhulkii ayaga ay asal ahaan ka soo jeedeen qiraalka midaas ayuu tilmaamayaa halka qiraalka oo meelaha qaar oo tilmaamayo in ihaano bini aadanimo loo geystay muwaakiliinteeda oo ah in maaragtay loo qubeeyey oo cooradooda maaragtay banaanka loo dhigay in maaragtay tawxiidkoodii maaragtay lagu jeejeesay
waxaasoo dhan ayay qiraalka ku sheegeen hadalka noocaasana waa xaqiiqo ka tarjumayo duruufta ay wajahayaan ciidamadeena qaranka Soomaaliyeed maalinba maalinta ka dambeyso maaragtay lagu eedeynayo fal dembi ayaga ay u bareerin waxaan halkan ku haynaa mudane gudoomiye garsoorayaal laba xaanshi oo kala ah marag muujinada xeraalinta ay ku doonayso in eed aan sharci waafaqsanayn ay ku soo oogto muwakkiliinteeda kala ah Maxamed Cabdiraxmaan iyo Mustafa Ibrahim mudane gudoomiye garsoorayaal haddii aan soo qaato warqadda ruqsad ka saarista ee lagu racdeynayo ama looga qaadayo shaqada ninka la yiraahdo Mustafa Ibrahim waxaa lagu xusay in shaqada looga saaray laba arrimood oo kala ah dhac joogto ah iyo isticmaal maandooriye ah waxay ahayd inta shaqada aan laga saarin ka hor fal dembigan in la soo oogo maxkamad horteedana lagu soo eedeeyo haddii lagu helana kadib loo raacsiiyo ruqsaddii ka saarista ciidanka ayadoo taas lagu dhaqmin ayaa waxaa la soo saaray warqad aan sharciyad ku fadhin oo false allegation ah eed aan sharci ku fadhin ah qodobada kale oo eedda markii aad fiirido gudoomiye garsoorayaal dhammaantood qodob kastoo ka mid ah qodobadan wuxuu leeyahay farqo hoosaad qodobka lixaad oo keliya ayaa si cayiman loo sheegay qodobkaasna doodii aan dhegaysanay kuma jirin caddayn tilmaamayso ka mid noqoshada ururka khawaarijta inay ka mid noqdeen muwakkiliinteeda qodobada kale ee raacsiisan iyagana waxaa loo soo qaatay ciwaan ahaan waxaana la rabaa eeddu inay cayiman tahay mar haddee eeddu cayimanayn wax ay tilmaamayso oo xaqiiqa ama sharciga ma jiro mudane gudoomiye garsoorayaal halkaas ayaan iiga eg tahay aniga 116 waxaana raacsiisanayaa 119 oo inaan soo qadimo ah dacwadda waxaan codsanayaa in muwakkiliinteeda Maxamed Cabdiraxmaan iyo Mustafa Ibrahim loo fiiriyo maadaama falkii ay ku dhaqaaqeen oo ahayn fal bareer ah oo yahay igraah shareecada islaamkana aayaad ka mid ah ayaan rabaa inaan ku xuso halkan oo tilmaamayo in igraaha uu yahay shay bannaan waxaan rabaa mudane gudoomiye garsoorayaal in aayaadka ku xusan suuratu annaxli 106 waxay tilmaamaysaa in igraaha ama qofka markii la igraaho wuxuuna ogoleyn lagu qasbo in maaragtay loo ogol yahay cudurdaar sidoo kale suuradda la yiraahdo suurat al-nuur aayaddeeda 33 iyana sidaas iyo si lamid ah ayay bayaaninaysaa qof kastoo igraah lagu qasbo in macnaha wixii lagu qasbay bacdigeed oo ilaahay maaragtay ka dhaafayo waxaa kaloo raacsiinayaa suuratu daha aayadda 73 iyana waxay ayidaysaa aayadaha aan hadda kor ku soo xusnay ee suuratu annaxli iyo annuur waxay ka hadlaysaa iyana wax kasta oo ikraah ah iyana maaragtay in cudurdaar uu leeyahay qofkaas waxaan kaloo codsanaynaa aayaadkaas iyo aayadda kale ee suuratu maryama oo ay ku camal faleen muwakkiliinteeda in maxkamaddu ay mid mid noogu tixgeliso maadaama ay yihiin muwakkiliinteeda askar oo dhallinyaro ah oo maaragtay u bareertay waqtigan culus inay ciidanka qortaan eena maaragtay u daadiyaan dhiig sida hadda Maxamed Cabdiraxmaan oo kale oo ku dhaawacmay howlgal lagu difaacayay qaranka iyo in waxaan kaloo codsanaynaa xorriyaddoodii dib loo celiyo halkaas ayaan uga baxay mudane gudoomiye garsoorayaal maxkamaddu way mahadsan tahay mudane gudoomiye waxaan garsoorayaal waxaan qareen u ahay nuur maxamed xiirey guure iyo saabir axmed cabdulaahi waxaan bilaabi doonaa nuur ayaan bilaabi doonaa nuur eeddiisa haddii loo deedsho 103 104 wuxuu ku jawoowiyey laguna eedeeyey inuu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab una tagiyey kana hadaliyey warbaahin
ayagu ay leeyihiin. nuur eedda noocaasa wuxuu ku jawaabiyey in uusan gelin. waxaan su'aalna baaraha kiiska gungaar inuu gudbiyey, gungaarkiisana uu ku gudbiyey eedaysana nuur in uu shabaab nimanka la yidhaahdo warbaahintooda inuu ka hadaliyey, dowladdana uu ku tilmaanyey in ay gaalo tahay, gudbiyeyna sirta ciidanka qalabka sida. intaas inuu gungaarkiisa ku gudbiyey ayuu sheegiyey. mudana guddoomiye garsoorayaal, xeer ilaalintu juhdiyay bixisay waxay soo bandhigeen cod ama codad. mudana guddoomiye garsoore, maadaama xabad xabad ayaan u dul istaagaahe nuur qiraal ousan ahayn, maadaama markhaati caddaynaya inuu shabaab u tegiyey warbaahintoora ka hadaliyey, ku tilmaanyey dowladda soomaaliyeed inay gaalo tahay aan la soo bandhigin, maadaama warkii la sheegoo ahay idaacaddooraad ka warrantay ay caddaaweyde inuu la dooday ay caddaatay, wax lid ku ah hadda jiritaanka qarannimana aan goobta lagu soo bandhigin. maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanayaa inaysan aqbalin codsiga xeer ilaalinta, in ay xurnimadiisi siiso, inay u tixgeliso qodobka 122 si uu ugu biiro ribaartadii ou ka tirsanay nuur. al-iqraaru sayidul adilla ayaa la yidhaahdaa. wuxuu qiraal yahay ninkaasi inuu shabaab ahaa, ciidanka xooggana ou ku biiray. ka difaaci maayo shabaab inuu ahaayoo asagaa qiraal ah. waxaan ka difaacaa qodobka 434 wuxuu u baahan yahay waa rugni maadiya, canaasir ayuu u baahan yahay. lama hayo cidow diliyey oo nafta ka tirjiya lama hayo, sheegasho kaligeerna lama rabo. shabaab inuu yahay qiraalow yahay, laakiin cidow diliyey oo hebel 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 ama heble hebel la yidhaahdo lama hayo. xeer ilaalintu waa niyaabal caama ee dhibana khaas ah oo dhahaya dadow iga dilay lama hayo. waxaan maxkamadda sharafta le ka codsanayaa inay laasho qodobka 434 maadaama caddayman ouna lahayn, inta uu qiraal yahayne maxkamaddu ay ku xukunto asigaaba qiraalehe. maxkamaddu waa mahadsanta. maanta dhan doodaa socoto dhegeysiismaho si fiican. doodda maxaa kaaga baxay, maxaana codsanaya marka ugu dambeyso? maxkamadda waxaan ka codsanayaa, maxkamadda sharafta waxaan ka codsanayaa, aniga shalay waxaan usoo qortay ciidanka qaranka inaan dalkayga, diintayda iyo dadkayga iyo calankayga aan difaaco. aniga ilaa hadda fikirka ayaga ay leeyihiin mataqaanaa ka mid miihi. waxaan ka codsanayaa lambarkayga ciidanka iyo xaquuqdayda iyo waajibaadkii aan lahaa si xornimo lah oo inaan lagu wareejiyo. maanta dhan doodaa socoto dhegeysiismaho doodda maxaa kaaga baxay, maxaana codsanaya marka ugu dambeyso? dada horta sax weeye, ma qaldoomana ilaahay waa, anigana waa qaldoon, qaladkeyna waa qaatay. maxkamadda sharafta waxaa ka codsanaa inay xuruudda dab ii siiso, ay ciidanka igu celiso. marka bilaa yare maxaa codsanaya? ya maxaa codsanaya? ma usday ardayda walaa inta laga sheegayna been leh buu ardayda maxkamadda si fudud leh ku usday insha Allah. aye أنا أي معناه من إيدولا من أنا كثيرنا midna ku dooday midna ku dooday. haye خلت كذا واحد سواجر أنا أرتا خلت كيجن وآخرسنا معنا حكمت شرفت لنا عاق السنة إن نكرجع أو قلد ما معنا وأنا القلدا وأنا كي قلد سكرسن مركب حب أنا بوق نحرسته إني يفيري معنا دام dhalinyarana mustaqbal u baahanahay in lagu degdegina rajaynaa macnaha.
ugu dambeynna gaashaanle sare xasan cali nuur shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa fadhigan soo xiray maxkamadda ayaa go'aan ka soo saarayso fadhigoodna xiray cabdi fataax akhyaar warbaahinta qaranka muqdisho